بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي عبد الرحمن موسى waxaan kula wadaagayaa faalla kooban oo aan ka diyaariyay arinta Sool iyo Somaliland ayaa ku soo duulay ayaa faallada magaceeda la yiraahdaa sidan ayayna ku bilaabanaysaa. Somaliland ayaa ku soo duulay Muuse mise Shisheeye shacabka Burco iyo Hargeysa ee dhawaanahan sameynayay mudaharaado lagu difaacayo Somaliland ayna doonayaan in Somaliland laga difaaco Shisheeye kaga soo duulay dibadda waa sida bulshada laga dhaadhiciyay. Marka hore shacabka Hargeysa iyo Burco waa inaanay ka lumin jidka toosan ogaadaana in Somaliland aad difaacaysaan ay ku soo duuleen Muuse taladana loo leexiyo dhanka Muuse si aad xogta u heshaan. Akhri qoraalka aan kaaga sheekeeyo halka ay ka soo bilaabantay sheekadu. sida aad la socotaan xilligii Farmaajo waxaa Addis Ababa ku kulmay Muuse Biixi iyo Farmaajo iyo Abiy Ahmed. halkaasi ayaa lagu gaadhay heshiisyo hordhaca. heshiisyadaas waxaa ka mid ahaa in Muuse lagu maamuuso midnimada Soomaaliya oo awoodda dalka inteeda ugu muhiimsan lagu wareejiyo. kow inuu qaato ra'iisul wasaaraha ama madaxweynaha, in caasimadda Soomaaliya laga dhigo Hargeysa, in baarlamaanka iyo awoodda dawladda loo soo wareejiyo ama loo soo raro Somaliland. inta badan qodobadaasi waa la isku afkartay waxaana lagu heshiiyay wejiga labaad ee wadahadallada in lagu qabto Hargeysa. Muusena uu ka sii shaqeeyo sidii Farmaajo ku imaan lahaa Hargeysa siina dhirindhiriyo. waadna la socotaan oo dareen adag ayaa ka hor yimid arrintaasi. shacabka Somaliland ama Hargeysana aad ayay uga dhiidhiyeen waana ay ka soo horjeesteen. mashqicintii arrintaasi Hargeysa ayaa suuro gali weyday in Farmaajo uu yimaado. marka ay halka marayso ayaa kabiirka siyaasadda ee Soomaalida soo galay arrintii Ismaaciil Cumar Gelle wuxuuna arrintii ku soo ururiyay wejiga labaad ha ka qabsoomo wadanka Djibouti anaana sii dhamaystiraya. kadib kulankii Djibouti waxaa la isla gartay inaanay suuragal ahayn in xilligan loona baahan yahay sidii loo suurayn lahaa arrintaasi maadaama ay shacabka aad uga kacsan yihiin. suuragalna aanay ahayn inuu madaxweyne Farmaajo uu tago magaalada Hargeysa. arrintaas oo ay ka biyadiidan yihiin halkaas oo ay ka dhalan karto waa sida uu Muuse odhanaya kacdoon iga dhan ah ayaa Muuse ku jawaabay. markaas ayaa la qaabeeyay sidii suuragalka ah oo noqonaysa in marka hore Muuse ka soo farxasho Somaliland oo soo burburiyo si shacabka kacsan looga soo afjaro wax kaliya ee ay dugaashanayaan ama ay ilaashanayaan si rajada shacabku u xumaato loona quusto. markaa kadib loona marsado wax allaale wixii la doonayo. halkaas ayay hayaankii ka soo bilowday mashruuca Muuse oo ka bilaabmay. shaqadii ugu horeysay uu qabtay ayaa ahayd in shacabkii iyo xisbiyadii siidhiga sitay rasaas nool madaxa lagala dhaco. waxaana la sameeyay ficilo kasta oo shacab kicin kara. kadib markii taasi fashilantay oo ay shacabkii madaxa hoos fooriyeen arrintiina ay ka dhidhiyi waayeen waxaa sheekadii loo wareejiyay wejigii labaad. dhanka Laascaanood wuxuu sameeyay Cornel Muuse oo mashruuca burburinta wada inuu shacabkii isu soo baxay madaxa laga toogto xabadna lagala dhaco aan loo meeldayn loona aabayeelin. markii dadkii degi waayeen ayaa la isticmaalay wejigii labaad ee mashruuca in dadkii laga jaro dhammaan isgaarsiinta, biyaha, leydhka iyo wax kastoo ay isticmaalayeen hawadana laga saaro si hawshiisu u hirgasho. mashruuciina uu sii shaqeeyo. dadkii markii ay hoos u dhigeen dhaqdhaqaaqii kadib markii hawada laga jaray hawadana laga xidhay oo ay arkeen inay daciiftay shaqadii ay wateen waa Muuse iyo tiimkiisii ayaa dhan kale loo bedelay. dhankaas oo ah in rasaas loogu daro cabrinta xadka ka baxsan. waxaa si toos loogu toogtay magaalada dhexdeeda nin dhalinyaro ah oo reer Laascaanood iyadoo ay halkaasi askartii amar ku bixiyeen inaan laba qaadi karin ninkaasi bartaasna isagoo umayda u yaalo. isla xilliyadaas Muuse waa hadlay dadka shacabka reer Laascaanood oo ka cabanayay in ay ka dilal istaba jooga oo muddooyin soconayay oo aan loo qiilhaynin ayaa Muuse hadalkiisii wuxuu ku beeniyay sheegashadii reer Sool oo ah inay dadka ay sheegayaan aan la dilin. tirada laga dilayna ayba ku kooban tahay 40 qof, 32 qofna ay hayaan dadkii dilay halka ay 8 kalena baxsad kaga maqan yihiin. dadkii shacabka ahna ay ku dhinteen arrin kedisa waa 20 qof dadkii ka badnaa ee ay madaxa ka toogteen ee mudaharaadayaasha ahaa.
joogsan mashruucii tiraba afar goor oo u hadlay muuse waxa laascaanood u dana marna kama hadlin maadaama uu mashruuciisu khuseeyo inay laascaanood sii fogaato Somaliland wixii la isku oran jirayna ay burburto mar walba uu sii fogeeyaa ugu dambeyntii wuxuu sheekadii u bedelay laascaanood waxaa jooga argagixiso isimada waxgaradka iyo waayeelka reer laascaanood ee cabashada wada dhammaantood waa argagixiso waxaanu la dagaalamaynaa argagixiso ayaana nala dagaalamaysa haddana kumuu joogin wuxuu marba meel ku dhufto sheekadii laascaanood si shacabka loo maran habaabiyo mar waa federaal mar waa shabaab marna waa Puntland mar waa daarood iyo wixii la mid ah dhammaan waxaas wuxuu ka wadaa fogeynta shacabka Sool wuxuu kale oo propaganda u adeegsaday warbaahinta qaranka oo xukumo qayb uu u bixiyay faalada warka dhammaan waxaasoo dhan waxa ay cadeynayaan in Muuse Biixi mashruuca ku soo qaatay kala daadinta waqooyi Soomaaliya burburinta Somaliland iyo inay dadku rajabeel noqdaan hadhowna laga suureysto wax allaale wixii la doonayo shacabka Burco iyo Hargeysa oo dhawaanahan waday mudaharaado loogu magac daray difaaca qaranka Jamhuuriyadda Somaliland shacabka Burco iyo Hargeysa hadaba Somaliland Muuse Biixi ayaa ku soo duulay mise shay